wacan daawadayaal halkan waa xulashada wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada wararka daawan doontaana waxaa kamid ah Cumar Cabdirashiid oo shaaciyay hal qorshe oo farmaajo lagu hor istaagi karo doorashada 2021 xariga uu maqsuud oo fila Soomaaliya ka dhaxabuuray guuxii khilaaf cusub Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo soo bandhigay xal kale isugu imaan karo doorashada 2021 Somaliland oo maxkamad soo taagaysa shaqaalaha ajaanib ah Xasan Cali Qerood oo xaq kula kulmay dhigiisa qadar waxa kaloo daawan doontaan madaxweyne Al-Bashiir oo xukun lagu riday balse lagu hayn doono goob la yaab leh qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan jaal xulashada wararka cusub taabal subscribe saar ku dhufo kambeelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad halkan markay wararka ku baahino Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa hal qorshe oo farmaajo lagu hor istaagi karo 2021 shaaciyay Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa wuxuu kulamo siyaasadeed ka wadaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu senator Cumar Cabdirashiid la kulmay saacado ka hor xubno kamid ah xisbiga Himilo Qaran oo dhowr arrimood ay ka wada hadleen ila madax banaan waxa ay warbaahintu sheegeen in Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka uu waday muddooyinkii la soo dhaafay kulamo lagu dhabarjabinayo dowladda Soomaaliya waxa uu soo bandhigay hal arrin oo lagu hor istaagi karo madaxweyne farmaajo doorashada soo socota si buu yiri xisbiyada siyaasadeed gacmaha isku qabsadaan ayna u midoobaan diidmada in mar kale xukunka uu qabto senator Ilyas Cali Xasan oo xisbiga Himilo Qaran kamid ah waxa uu sheegay in talooyin iyo kulan wax badan oo siyaasadda la iska laaf gartay shirkaas ay ra'iisul wasaarihii hore la qaateen Imaaraadka Carabta ayuu in muddo Cumar Cabdirashiid Sharmaarka ku sugnaa oo xaalad caafimaad uu joogay inkastoo bil uu ku sugan yahay Nairobi oo mucaaradka dowladda dhexe kulmo gaargaar oo kula qaadanayay xubnihii ugu badnaa mucaarad ayaa magaalada Nairobi ku sugan waxaana xubnahan hogaaminaya madaxweynaha Jubbaland ee muranka doorashadiisa ay dhalisay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale xubnaha kale ku sugan waxaa kamid ah xildhibaan ku jira Maxamed Xasan Idris Gane senator Ilyas Cali Xasan madaxweynihii toddobaad ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa sidoo kale xubnahaas kamid ah madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo gabigoodba mucaarad dowladda Soomaaliya mucaaradsan kulmadan waxaa mas'uulka sida warar hoose ay tilmaamayaan Cumar Cabdirashiid oo hadda dana Imaaraadka ay ka leedahay dalka isaga bilaabaya Cumar waxaa la tilmaamayaa in Imaaraadku ku soo xirayo siyaasiyiin badan si daraadeed kulmadu uu ka wado magaalada Nairobi ay qayb ka yihiin kulmadan haddii ay sii xoogeystaan waxaa macquul noqon doonta in Imaaraadka lacag ay geliso sidii mar kale meesha loogu tuuri lahaa dowladda madaxweyne farmaajo doorashada soo socotana xildhibaanada loogu qancin lahaa inaysan noqon doorasho qof iyo cod ah oo xildhibaanada marka la soo doorto lacag badan ay bixiso Imaaraadka ayaa dana weyn ka leh Soomaaliya marka loo eego waxa ay xifaaltan kula jirtaa dowladda Qatar oo hadda gacanta ku haysa qayb kamid ah dowladda Soomaaliya kulamadaas si xoogeysta ayaana qayb ka ah waxyaabaha ay Imaaraadka iyo sidoo kale Qatar ku kala xafiiltamayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo waxa uu soo bandhigay isna geestiisa xal kale isugu imaan karo doorashada soo socota maalmahan waxaa doodiisa socota sharciga doorashooyinka uu soo tarxaan bixiyay guddiga baarlamaanka uu saaray dib u eegista sharciga doorashooyinka inta badan dooda ayaa hal dhinac socota marka laga reebo dhowr ruux oo lagu tiriyo inay madaxweyne farmaajo la jaal yihiin sharciga cusub waxa uu meesha ka saaray codbixinta inay noqoto hal doorasho deegaan waxaana uu soo jeedinayaa doorasho deegaan ku saleysan maamul goboleedyada haatan jira waxaa kaloo meesha uu ka saaray in doorashada lagu saleeyo nidaamka matalaadda xisbiyada liiska xiran oo la dooranayo xisbiga oo kaliya xisbi walbana loo xisaabinayo codadka guud ee helo xisbigu uu go'aaminayo liiska musharaxiinta xisbiga sida ay ku soo baxayaan haddaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa arrimahan aad kaga hadlay waxa uu tilmaamay in doorasho toos mise doorasho qof iyo cod ah shaki ay tahay arrintaas doorasho qof iyo cod waa in shacabka si toos ah xakameyn la'aan ay ugu codeeyaan cidii ay doonayaan oo si madax banaan ama xisbi ku socda u tartamaya kuraasta baarlamaanka haddii si kuraasta baarlamaanka lagu sii kala suntado 275 kursi beelihii kala lahaa ay sidoo kale leeyihiin muwaadinkan uu kula dooranayo musharaxiinta beesha oo kale lama oran karo waa doorasho qof iyo cod laakiin waxay noqon kartaa doorasho toos ah oo aan ahayn mid dadban doorashadii 2016 waxay ahayd mid dadban oo odayaashii dhaqanka ay soo xuliyeen ergooyinka codka bixinaya halka musharaxa u taagan kursiga baarlamaankana uu si madax banaan isku soo taagay kursiga ayaa lagu tartamayaa oo ilaheed beeshii loo suntaa yiri laakiin sharciga doorashada ay haatan baarlamaanka socoto waa doorasho toos ah laakiin ma doorasho qof iyo cod kaliya hanaankii doorashada 2016 waxaa lagu soo kordhiyay dhowr qodob oo la oran karo waa horumar iyo talaabo hore loo qaaday waana qodobadaas ugu muhiimsan ay yiri Cabdiraxmaan kow in musharaxa kursiga xildhibaankiisa uu xisbi soo sharaxayo halkaas waxaa ka baxaya musharaxii iskiisa oo madax banaan isku soo taaga iyo in cod bixiyaasha ay si toos ah iskaga diiwaan geliyaan oo aysan u baahneen in oday dhaqan uu soo magacaabo iyadoo cod bixiyaashu ay isku diiwaan gelinayaan 275 kursi qofkiina uu hal kursi oo kaliya uu ka codeyn karo waxay u baahan tahay in la helo nidaam diiwaan gelin oo lagu wada kalsoon yahay yiri
haddaba doodaha isdiidan waxaa jira doodo isdiidan oo ku geedaaman sharciga doorashooyinka. Madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa waxay weli olole ugu jiraan doorasho ku raacda meel kasta oo dalka, isagoo dalku yahay hal deegaan doorasho in doorasho lagu saleeyaa nidaamka matalaadda xisbiyada liiska xiran oo la dooranayo xisbiga oo kaliya. Xisbigan uu yahay mid ka go'aaminaya liiska musharaxiinta xisbiga iyo sida ay kusoo baxayaan, iyo in madaxweynuhu ku yimaado xisbigii helaa aqlabiyadda fudud oo 50+1 xildhibaanada oo ah 140 xildhibaan. tuhumka hanaanka laga qaba ayaa in Farmaajo isleeyahay maadaama amniga dalka aan waxba laga qaban ayna adag tahay in doorasho deegaan dalka oo idin laga hirgeliyo, in duruufaha amni dartood doorasho kuraasta ugu badan lagu qabto magaalada Muqdisho, halkaasna ay ka codayaan wax loogu yeero xoogagga wadaniyiinta kuwaas hore u diyaarsada, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Arrimahaas ayuu aad kaga hadlay, waxaana uu tilmaamay in ay habboon tahay in xildhibaanada baarlamaanka ee ka doodaya muddo kordhiska in meel ay iska dhigaan damaca muddo kordhinta. Sidoo kalena madaxweynuhu waa inuu ku horaa amnigu isleeyahay xoogagga wadaniyiinta ay ku doortaan doorasho isdabamaris ah iyo ku shubasho oo aad meel marsatid. Sidoo kalena guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM waa inay iska daayaan dhalanteedka in la qabanayo doorasho qof iyo cod ah ee loo soo wada jeesto sidii loo heli lahaa doorasho toos oo xilligeeda ku dhacda. Haddaba haddii meel la iska dhigo damacyada waa lana xiriyo danta shacabka, xasiloonida dalka iyo dowlad dhisidda Soomaaliya, waxaa abuurmaya jawi loogu wada shaqayn karo sidii loo qaban lahaa doorasho la isku raacsan yahay is-ogol iyo isu-guddoon ku dhisan, ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadalkiisa kusoo xiray. waayahay xariga Abu Mansuurna fila Soomaaliya markan guux cusub ayuu ka dhex abuuray. ehelada Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur waxay sheegeen inay weli doonayaan cadaalad maadaama ninkan oo xanuunsan xabsiga lagu hayo iyadoo wax uu ku xiran yahay si cad loogu sheegay eheladooda siday tilmaameen. muddo sanad ah ayaa u buuxsantay markii la soo xiray Roobo, xilligaas oo ciidamada Itoobiya ay ka dhex qabteen Baydhabo kadibna lagu wareejiyay Muqdisho, xabsi ku yaala ilaa markaasna lagu hayo Roobo. ku-xigeenkii hore ee amiirka Al-Shabaab Mukhtaar Roobo waxaa xarigiisa mar kale abuuray guuxii khilaaf culus. waxaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal sheegay inuu hadda wajahayo cadaadis ay beesha Abu Mansuur soo saareen oo ah in ballan uu ka qaaday waxba uusan ka soo noosacdaan ballankaas. Farmaajo iyo Mursal waxay hadda isku hayaan saydeynta Abu Mansuur xilli Xasan Daar Aweys isna weli maxbuus ku yahay Muqdisho oo 5 sano dowladda Soomaaliya xabsi ay ku hayso. inkastoo siyaasad ahaan marka loo arko Abu Mansuur mid taageero badan haystay ee dowladda Soomaaliya ka reebtay doorashadii Koonfur Galbeed, ay dad badan isweydiinayaan maxay markii hore dowladda ugu ciqaabi weysay dambigii oo sheegtay inuu geystay. lama oga halkuu ku dambeyn doono Roobo oo dowladda Soomaaliya go'aan ay ka qaadan kiiskiisa ama maxkamad aan la keenin si xukun loogu rido, waxaana dad badan ay tilmaamayaan in dowladda ay habbooneed in ninkan xabsi ay soo taagto amaba ay sii dayso. Somaliland waxay maxkamad soo taagaysaa shaqaale ajaanib ah. Somaliland ayaa shaacisay inay qabatay 4 markab oo laga leeyahay Masar. maraakiibtan waxaa lagu qabtay kulumeysi sharci darro ah, sida uu sheegay taliska ilaalada xeebaha Somaliland. 4 markab waxaa la socday shaqaale aan tiradooda la shaacin. howlwadeenada ayaa la filayaa in maxkamad la soo taago, sida laga soo xigtay sarkaal sare oo hadlay taliska. bishii December 2019 ayeed markii ciidamada ilaalada Somaliland ay xireen 22 kalluumaysato oo dhalatay dalka Yemen laguna eedeeyay jilaabasho sharci darro ah. dooyahan laga leeyahay Yemen ayaa laga qabtay deegaanka Ceel Daraad oo ku dhow magaalada Berbera. Admiral Maxamed Faarax Hiiraan, taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland, waxa uu sheegay inay xoojin doonaan howlgallada ka dhan ah kalluumaysiga sharci darrada iyo tarxiilka. si kastaba ahaatee xeebaha Somaliland waxaa la sheegay inay ka mid yihiin goobaha maraakiibta shisheeye ay ka sameeyaan kalluumaysiga sharci darrada ah. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu dhigiisa Qatar kula kulmay Dooxa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dooxa kula kulmay dhigiisa dowladda Qatar Sheekh Cabdullaahi bin Nasser bin Khalifa Al Thani. labadan ra'iisul wasaare ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha iskaashiga laba geesoodka. Ra'iisul Wasaaraha Qatar ahna wasiirka arrimaha gudaha oo bogaadiyay guulaha dowladda Soomaaliya ka gaartay dib u habeynta, waxa uu sheegay in dowladda Qatar ay ka go'an tahay adkeynta xiriirka soo jireynta ee labada dowladood. kulanku ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre la qaatay dhigiisa Qatar ayaa qayb ka ah kulamo dacoodyo uu la qaadanayo qaar ka mid ah madaxda ka qayb galaysa madasha Dooxa. Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu ka qayb galay furitaanka madasha 19aad ee Dooxa oo maalintii bari khudbadii uu ka jeedin doono madasha Dooxa oo sanadkan looga hadlayo ajandayaal muhiim ah. ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa mar kale ka soo muuqday maxkamad xukunkeeda muran badan oo ka dhashay kadib markii ay isku soo baxeen dad badan oo isaga taageersan. maxkamadda al-Bashiir oo ka bilaabatay jabi degan ayaa mar qura isu bedeshay qayle iyo qalaaso kadib markii maxkamadda ay isu gedaameen taageerayaal badan oo qayle badan bilaabay markii uu garsooraha ku dhawaaqi lahaa xukunka. waxay ku qaylinayeen in dacwadda ay tahay mid siyaasadeed, kadibna garsooraha ayaa amray inay ka baxaan maxkamadda gudeed iyadoo arrintaas loo adeegsaday ciidamo tiro badan oo boolis ah.
murankaas kadib maxkamadda albashiir waxay ku riday 2 sano xabsi ah iyadoo lagu helay inuu galay dambi musuqmaasuq ah balse waxaa la yaab leh in maxkamaddu ay sheegtay in albashiir la geyn doono xabsi caadi ah balse lagu hayn doono xarun dhaqan celin ah musuqmaasuq lagu helay albashiir ayaa waxaa ugu weyn 25 milyan oo doolarka oo laga helay gurigiisa muddo yar kadib markii xilka laga qaado oo ciidamada dowladda la wareegeen gurigiisa albashiir oo maxkamadda horteeda ka hadlayay waxa uu sheegay in lacagta 25 milyan oo doolar ay ahayd hadiyad uu ka helay boqortooyada Sacuudiga si gaar ah waxa uu tilmaamay inuu ka helay Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga garsoore Maxamed Al Sadiq Cabdiraxmaan oo soo saaray xukunka ayaa yiri maxkamaddu waxay dambi ku heshay Cumar Xasan Axmed Albashiir maxkamaddu waxay go'aansatay inay u dirto xarun bulsho oo loogu talagalay daryeelkii dhaqan celinta oo 2 sano lagu hayn doono bishii Abriil ee sanadkan 2019 ayayd markii xilka laga tuuray madaxweyne Albashiir kadib dibaaxyo dhowr bilood ka socday jidadka waaweyn ee dalka Suudaan guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warkeed kala socoteen xulashada wararka waad ku mahadsantihiin sida wararkeena aad ula socotaan nabadgelyo